الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي waxaan wanaagsan walaalay qaaliga meel kasto adduunka ka joogteen waa idin salaamay kusoo dhawaada channelkayga ayaan dhalaal cooking hadii Allah awood uu qadaro insha Allah maanta maxaa hagaajisaneynaa hilib alforn ayaan hagaajisaneynaa waxaabihii aan ku dar leen carafta ayaa marka hore inta ku tusay insha Allah oo soo diyaarsaday waxyaabaha inta aan ku soo diyaarsadana maxaa kamid ah halkaas maxaa ku haystaa curry powder xabad jubba ah reco cube huruud gram masala hal xab liin dhanaan ah shiishiid sidoo kale inta maxaa ku haystaa xabad yar oo basal ah oo soo fiiqay geedkan u jeedin waxaa waa rosemary kabsar saddex xabo toon ah sinjibiil filfil iyo maxaan ku haystaa basal waa basbaas aan dhihi rabay basbaaska aad u yar anaga reer basbaas ma nihiin waxaa waa jab basbaas xabadiyaas ii kala jabiyay ma fahanteen kana waa rosemary waaye intaana caraftaana isku soo shiideena insha Allah waa isku soo noqon doonaa hilibkeenana waa kana qaybtan waxaa waaye waa sarar iyo garabkii oo dhan oo isaysto aan la soo kala jibnin waaye marka wax yar midisaan ugu soo sarsaray si carafta ay dhexda uga gashay insha Allah ila socday asxaabteeda qaaliga makiinada cabitaanka lagu shiidan soo qaatay wixii dhan intaan ku wada shubay yaro saliidan oo kusoo diray waxaas kale korka hadda uga u jeedin waxaa waaye food color yellow wax yar ku daray insha Allah waa soo shiideena waa isku soo noqoneena waan soo shiidnay asxaabteeda waa isku soo noqonay waa u jeedin intaas qoyaankii ka dhigtay intaasuna igu bislaana insha Allah waxaas kuusan uga jeedin waxaa waaye toontaasna anaa macnaha u rabay inay si fiican makiinada is iga jibin si macnaha carafteeda hilibka ay ugu dhex gasho waan ku baaba'aysaa insha Allah ila arki doontiin haddana waxaa aadeena dhinacaas hilibkii soo socda ayaan idin leeyahay walaalahayga maasha Allah walaalahayga qaaliga u jeedin haddana hilibka ku soo guraaya qoyaankii caraftii wixii aan soo shiido idil hilibkeena saas ugu soo guraaya kadib si fiican ugu qasaasay carafta dhan ay dhexda uga gashay insha Allah gacanta u la tagaysaa si fiican u dhex gelinay garabka u isaystaa ma la soo kala jabinin waa u jeedin marka wax yar oo midiya jagjag ku soo siiyay si carafta ay dhexda uga gasho hadii aad waqti fiican haysato waxaad sameyn kartaa habeenkii ayaa saan u qasaysaa marka habeenkii sidan u qastana fridge ayaad gelinaysaa subaxii ayaad ka soo saaraysaa maasha Allah intaas oo dhan habeenka ugu jira carafta dhexda ka galaysaa hadii waqti haysatid oo kale maalintii hal saac amal way kuugu filantaa ama 2 saacadood sida waqti aad u heshid haddana isku soo noqonayna walaalahayga qaaliga maadaama taleefanka hal gacan aan ku hayo hal gacan shaqada aan ku hayo marka maxaa sameynayaa oo u jeedin saxan ku soo gudiyay qoyaanka aad u badan waa ila arki kartiin aan fahmayaa marka saxanka foornada aan la gelin lahaa soo qaadanayna insha Allah warqad geesdiirka ama aluminum ka u taqaanid aasaan ugu soo fidiyay laba xabo soo dul saaray marka waxa sameynayaa insha Allah hilibka ku soo gudina ila socda xabad yar oo basalna waa soo jarjaray adii dhowr caleen oo kabsar caleen iyo rosemary isku jirtana waa soo qaatay korka ka soo saaray u jeedin marka waa isku soo noqoneena warqada ayaan si fiican ugu soo duuduubaya insha Allah markaas ayaan inoo balana waa kana warqada waa ku soo duuduubay walaalahayga qaaliga ah karaal noqdaya adaa qaylo maqashaan caruurta dariska ayaa xoogaa qaylinayo waa u jeedin hadda maxaa aadeynaa foornada ayaan aadeynaa hilibkeena hal meel ka banaana sa arkaysiin si fiican u soo duuduubay foornadeeda saacadeeda waa 50 daqiiqo yacni u dheer 50 kaas marka hore u geynaa haddana 50 kale u geynayaa adiga 2 saac iyo wax yar ku jiray 2 saac 10 daqiiqo ama 2 saac 20 inaan jeclahay ovenkan waa kana qiyaas mala ovenkayga dabka meeshaas u dheer marka meeshaas u geynaa insha Allah ana la joogayo waaw maasha Allah tabarakallah alxamdulillah rabbil caalamiin waqti badan ka bacdi waa u jeedin ovenku ka soo baxay saasoo ku soo baxay waa u jeedin lafta in iyo hilibka indhiina ayaa idin macalina aad u kululay asxaabay gacanta lama saari karo marka oven ka soo bixi ayaa fiidiyowga ku qabtay waa u jeedin dheecaankii iyo wixii dhan wuu dhameystay wuuna noo guduutay maasha Allah tabarakallah waa u jeedin lafta hilibkiisa u kala dhaceen soo dhawaada ayaan idin leeyahay bariis ku cuni kartaa kaligiisa cuni kartaa baasta ku cuni kartaa wax allaal wixii aad jeceshaa adiga waa u jeedin wax qoyaan habeeraatay meesha maba ku jiraanba mana ku harin qoyaankii idil wuu dhameystay markii ugu dambeysay ayaan warqada ka furay si uu u guduuto aad u kuleel badnaa markaas gacanta ugu taabanayo wallahi inaba caadi ma ilaahu gumi rabbi raxmaano marka walaalahayga qaaliga aan jeclaa soo dhawaada inta haysan ilaahay ha siiyo inta haysatan ilaahay u barakeeyo insha Allah anagana ilaahay noo barakeeyo
soo dhawaad ayaa ilaa hadaan ugu cusubtahay subscribe ka like comment ka share ka waxa dhan hanaga baqin insha Allah na soo dhaweeyay la'aantiin abaar waaye idinka ayaa wax idinku nahay idinka ayaa wax idinku ahay walaalay qaali ana soo dhaweyn doontiin waan rajeynayaa mar walba oo ii kala kicin doontiin videoyada insha Allah